ugu horeyn saxaafadda sharafta leh waxaa idinku yeedhnay oo aan idinku yeedhay xafiiska laba qodob inaan ka hadlo. labadaa qodob waxay kala yihiin mid Somaliland oo dhan ka dhaxaysa iyo mid gobolka Awdal ku gaar haddii aan horreysiiyo Somaliland ka dhaxaysa. madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka ee xisbiga wadani uu ka biyadiiday. wuxuu isagu ku adkaysanayaa in sideeda lagu ansixiyo. waxaan anagu aaminsanahay oo aaminsan yahay wadani waxa uu tanaasulay in ka badan 9 jeer buu tanaasulay xisbiga wadani. waxa tanaasulka ku jiray oo kow ka ahaa in isaga madaxweynenimadiisa la sharciyeeyo kow bay ka ahayd. ilaa maanta uu dib u soo magacaabay komishankii marka hore muranku ka taagnaa. taasi waxay tusaale cad u tahay madaxweynuhu inuu maaweelinayo dadka oo aanu doorasho diyaar u ahayn. marka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanku dib u dhacaan waxa dib u dhici doona doorashada madaxweynaha. waana muraadka kama dambaysta ee madaxweynaha maanta fadhiya ay u leeyahay. waxaanu ugu baaqaynaa oo nuleeyahay madaxweyne Somaliland laba arrimood bay ku faani jirtay. nabad ay ahayd midna dimuqraadiyad bay ahayd. labadiiba maanta labada sano iyo googo aad xilka haysa midna lama hayo. qodobka labaad ee ka hadlaya ee dhibta ugu badan ee gobolka Awdal maanta ka jirta waxa weeyaan waa nabadgelyo darro la soo sheegayo xeebaha ah. dadka xeebaha ah waxa ku dhacday duufaan, waxa ku dhacay abaar ka sii horeysay oo abaarta iyaga ku dhacday dad ku dhinteen. gobolada kale xoolaha ku dhintay laakiinse gobolka Awdal abaartii ku dhacday dad baa ku dhintay. waxa ku dhacday duufaan aan ku dhicin gobolada kale ayaa u gaar ahayd gobolka Awdal. lama soo gaarsiin macaawinooyinka xitaa dawladda Soomaaliya farmaajo halkii milyan uu soo diray waxay soo dhaafi weyday Hargeysa. maca dalika dadkii xoolahoogu sida uga farabaxeen maanta waxa ay taagan yihiin moron ah beeraha aan qodan iyo qodan mayno. waxa nasiib darro xukuumadda maanta joogta inay runta u kala sheegi weydo oo ay oran weydo adaa saxsan adaa khaldan. nidaamka dawladnimadu wuxuu sharaf leeyahay oo bilaadanku u samaystaa inuu kala hago traffic yahay. waxa nasiib darro in dadkii maanta reer Awdal xukuumaddan ay maanta iyadu baddo inay isku qabsadaan beer baan qodanayna iyo qodan mayno. warma waxa loo kala sheegi laayo wasaaradda meesha joogta ay kala sheegi laadee beeruhu ninka beerta qodanaya iyo kama qodanaysin lama runta loo kala sheegi laayo. waa nasiib darro maanta xukuumaddan jirta. laakiin dadka reer Awdal way dareensan yihiin sida ay wax u socdaan bay dareensan yihiin. xukuumaddu dhankay wax u jiideysay dareensan yihiin. waxay dareensan yihiin isku dhifashada halka iyadu xukuumaddu ay ka doonayso baan dareensanahay. waxa la waxay ka faa'iideysana garan mayno. waxa nasiib darro labada sano ee madaxweynahaasi joogo waxa dhacay dhiig, waxa dhacay abaaro, waxa dhacay duufaano, waxa ka dhacay isku diro, waxa dhacay kala qabasho la'aan dadka bulshada reer Somaliland kala qaban laayeen. maanta bulshada Somaliland dhammaanteed nabadgelyada waxay ka taagan tahay gobolada bariga iyo galbeedka oo maanta iyadana loo soo wareejinayo. kelmadda la yiraahdo waad gardaran tahay. waad gardaran tahay baa xukuumaddaasi maanta oran kari laaday. marka ay xukuumaddii ummadda u dhaxaysay ay runta u kala sheegi laaday. marka wasiirkii beeraha qaabilsanaa ay u dhuumasho ku jiro ee marmarna warqad yar oo caata oo soo qorayo beeraha lama qoodi karo ay hoosta kaga yar qoranta oo soo qorayo. waa ayaan darro xukuumadda ina bixi maanta haysata ee madaxweynaha maanta joogay nasiib darro ku kooban weeyaan. dadka walaalaha ah ee xeebaha degan ee abaaruhu ku dhaceen ee duufaanadu ku dhaceen waxaan ugu baaqaynaa inaanay u dhag taagin waxa xukuumaddu meesha ka dhex raadinayso. dhibta xukuumaddu ka dhex raadinayso ee ay u kala qaban laadaay inaanay sugin xukuumad laakiinse garaadkooga ay ku kala joogaan oo ay nabadgelyadooda ilaashadaan oo ay walaalnimadooda ilaashadaan. guuri maayo ciise gadabuursina guuri maayo ilaahay baa dhulka wada dhigay. laakiinse walaalnimadooda iyo wada jirkooga waxaad moodaa inay cidi qandaraas gaar ah ku qaadanayso. waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan oo ay garaadkooga cid alle cid ay sugaan inaanay jirin. dhib badan baa soo martay iyaga furdaamiye duufaantii ku dhacday iyaga abaari ku dhacay furdaamiye. waxaan iyagana ugu baaqaynaa walaalnimadooda inay adkaystaan
oo aanay eegin cid meel uga timaada oo runta u kala sheegta haddii soo maanta xukuumadda joogtay runta ay sheegayso bari la isuguma dhamaadeen wixii dad ku dhintay kuma dhamaadeen adaa gardaran 10 jeer baa bari shir lagu qabtay wali ma naan maqal citri waxa gardaran cidaasa gardaran awdal waxa laga doonayay inay dadku isku dhamaadaan lana oran waayay cidaasa gardaran waxaanu leenahay xukuumadda waxa waxay ka faa'iideysan garan mayno nabadgelyo darrada jirta ee soo socota ee maalin walba odayadu ka hadlayaan waxa loo dhageysanayo dhag jalaq loogu siin laayay waa nasiib darro maanta xukuumaddan taagani ayadu gacanta ku hayso intaas sanad kale